kulanti wanaagsan mar kale daawadayaal madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud warbixintaasi waxa magaalada Dhuusamareeb inooga soo diray Shucayb Maxamed madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi ballaaran oo horkacayo ayaa duurnimadii maanta ka soo degtay garoonka duulimaadyada Ugaas Nuur Airport magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxaana madaxweynaha wafdigiisu markii ay soo gaareen xarunta gobolka soo dhaweyn diiran kala kulmeen qaybaha bulshada gobolka Galgaduud mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisa mas'uuliyiin ka tirsan maamulada degmooyinka gobolka Galgaduud xildhibaano ka tirsan baarlamaanka qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale ugaasyada diinta waxgaradka aqoon-yahanada iyo ugaasyada ka qaybgalaya shirka laga furay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud madaxweynuhu ugu horeyn wuxuu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb inta kadibna madaxweynaha ayaa loo soo galbiyay gudaha xarunta gobolka gaar ahaan halka uu shirku uga soconayo odayaasha beelaha dega gobolada Galgaduud iyo Mudug xubnaha wafdiga ee socdaalka ku helinaya madaxweynaha Soomaaliya waxa kamid ah wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka qaranka odayaal siyaasiyiin aqoon-yahano ganacsato iyo sidoo kale waxgarad u dhashay gobolada dhexe ee Soomaaliya ilaa iyo haatan ma jirto mas'uul ka tirsan wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha ee bahda warka tabisa la hadlay kana waramay ujeedka madaxweynaha Soomaaliya oo u yimaaday magaalada madaxda gobolka hayeeshee wararka soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya uu ka qayb qaadanayo sidii loo xasilin lahaa siyaasadda gobolada dhexe iyo sidii ummadda gobolada dhexe ugu furmi lahaa shir ay ku wada qanacsan yihiin oo maamul loogu dhiso gobolada Galgaduud iyo Mudug madaxweynaha ayaana xilligan qaybaha kala duwan ee bulshada gobolada dhexe wuxuu kulamo kula leeyahay xarunta uu shirku ka soconayo waxaana ay noqonaysaa markii labaad ee madaxweyne Xasan Sheekh oo socdaal caynkan oo kala ku yimaado xarunta gobolka Galgaduud sidoo kalena imaantinka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo beegmaysa xilli habeennimadii xalay ahayd magaalada madaxda gobolka odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo ugaasyada ka qaybgalayay shirkii dib u heshiisiintu ay sheegeen inay shirkaasi xireen isla markaasina ay Dhuusamareeb ka fureen shir kale oo maamul loogu dhisayo gobolada Galgaduud iyo Mudug Shucayb Maxamed Cali Somali Channel magaalada Dhuusamareeb